Nicholson oo ka socota baarlamaanka dalka boqortooyada Ingiriiska gaar ahaan House of Lords ayaa hanbalyo iyo bogaadin ballaaran u soo jeedisay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland sanad guurada 60aad ee ka soo wareegtay markii dalka boqortooyada Ingiriisku uu xornimada u siiyay dalka Somaliland iyadoo dhinaca kalena sheegtay waqtigaas in dalka boqortooyada Ingiriisku uu u sheegay dalka Jamhuuriyadda Somaliland in aanay xornimadooda iyo gobonimadooda cidna aanay kula midoobin balse waxa ay hoosta ka xariiqday in sanadku markuu ahaa 1991 ay dalka Somaliland iyo shacabkeeduba ay dib ula soo noqdeen gobonimadaas iyadoo oo sheegtay in Somaliland ay buuxisay dhammaan shuruudihii lagu aqoonsan lahaa dal sidoo kalena iyadoo ku hambalyeysay dimuqraadiyadda iyo dawladnimada ka hirgashay dalka Jamhuuriyadda Somaliland. 60 years ago today, a newly independent sovereign nation state won her independence from the United Kingdom, and she was formally recognized by 35 countries, including the 5 permanent members of the Security Council. That nation who gained her independence 60 years ago is Somaliland, which I was very fortunate to visit for my first time last year. When Somaliland gained independence from the United Kingdom, she did so under peace and with goodwill and agreement from both sides. But Somaliland decided to join in a union with Somalia only 5 days later. A very, very different way of joining. It was a huge mistake, which the British government, in fact, in 1960, warned Somaliland not to do. 60 sanadood ka hor ay ahayd markii dalka Somaliland uu xornimadiisa u ka qaatay dalka boqortooyada Ingiriiska. Somaliland waqtiga waxa aqoonsaday 35 dawladood oo ay ka mid yihiin 5 dawladood ee ku jira golaha ammaanka qaramada midoobay. Somaliland waxa ay la midowday Soomaaliya walow aanan hadan dalka boqortooyada Ingiriiska aanan waqtiga jeclayn in ay go'aanka ay qaataan ayay tiri Browns Emma Nicholson.